Ma ogtahay hordhaca Kung Fu-ga inuu yahay aragti guud oo ku saabsan taariikhda iyo fikradaha asaasiga ee farshaxanka dagaalka ee Kung Fu. Kung Fu-ga sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Wushu. Waa mid ka mid ah dhaqamada isdifaaca ee ugu faca weyn Shiinaha, wuxuuna leeyahay taariikh qoto dheer. Kung Fu-gu wuxuu ka soo jeedaa dhaqamada dagaalka ee Shiinaha, wuxuuna soo maray isbeddello badan oo la xiriira falsafadda, diinta iyo bulshada. waxaana laga yaabaa in la aasaasay qiyaastii 5,000 sano ka hor. falsafadda Taoism iyo Buddhism ayaa sidoo kale saameyn weyn ku leh horumarinta Kung Fu. Kung Fu-ga waxaa jira noocyo badan kuwaasoo ka mid ah Shaolin Kung Fu. Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan oo asal ahaan ka soo jeeda masjidka Shaolin oo leh xoog iyo xirfad sare. Wing Chun noocani wuxuu caan ku yahay dhaqamada gaagaaban iyo dhaqdhaqaaqyada degdega ah. Tai Chi tani waa nooc ka mid ah Kung Fu-ga oo diirad. Ma ogtahay hordhaca Kung Fu-ga inuu yahay aragti guud oo ku saabsan taariikhda iyo fikradaha asaasiga ee farshaxanka dagaalka ee Kung Fu. Kung Fu-ga sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Wushu. Waa mid ka mid ah dhaqamada isdifaaca ee ugu faca weyn Shiinaha, wuxuuna leeyahay taariikh qoto dheer. Kung Fu-gu wuxuu ka soo jeedaa dhaqamada dagaalka ee Shiinaha, wuxuuna soo maray isbeddello badan oo la xiriira falsafadda, diinta iyo bulshada. waxaana laga yaabaa in la aasaasay qiyaastii 5,000 sano ka hor. falsafadda Taoism iyo Buddhism ayaa sidoo kale saameyn weyn ku leh horumarinta Kung Fu. Kung Fu-ga waxaa jira noocyo badan kuwaasoo ka mid ah Shaolin Kung Fu. Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan oo asal ahaan ka soo jeeda masjidka Shaolin oo leh xoog iyo xirfad sare. Wing Chun noocani wuxuu caan ku yahay dhaqamada gaagaaban iyo dhaqdhaqaaqyada degdega ah. Tai Chi tani waa nooc ka mid ah Kung Fu-ga oo diirad. Ma ogtahay hordhaca Kung Fu-ga inuu yahay aragti guud oo ku saabsan taariikhda iyo fikradaha asaasiga ee farshaxanka dagaalka ee Kung Fu. Kung Fu-ga sidoo kale